وهجاك داوضيال هل كان شغنه وزارة حرونته وزارة أمنية الدولة بنتلان أو كنت على مجال الجروة مقعقة يا سعيد عبد الله waxaan ayga fadhiya Saciid Cabdullaahi oo kamid ah dhalinyarada ka soo fakaday dalka Eritrea oo ciidan ahaan dawladda Soomaaliya muddo 2 sano ka hor halkaas ayuu geysay Saciid ayaan su'aalo kooban weydiin doonaa oo fursad kooban ku helay in uu dadka uga sheekeeyo dareenkiisa iyo sababta halkan dib ugu soo celisay bal wixii kugu soo dhacay Saciid dadka la wadaag dalmar media aniga waxa halkan ay keenay waxa weeye tacadiyada meesha ka jirta iyo meeshii waqtigii nagu dheeraaday baaniga halkan keentay dawladda Puntland baa hadda la joognaa oo mas'uuliyiinta Puntland baan is aragnay waxa weeye waa ka markay maxaad u soo tagtay hadii ciidanimo lagu geeyo Eritrea waqtigii baan ugu dheeraaday baan ugu dheeraaday ma jiraan wax aad tabanasaan oo ah cabasho ah in sida aad doonaysay si ka duwan la dhaqmay waxa weeye tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii aan meesha aan ku soo marnay waxa weeye wax dhacay weeye haddana waxa weeye caafimaad qabnaatay halkan maxaa idinku dhacay marka dadka la wadaay waxaan dadka u sheegayaa waxaan nagu dhacay waxa weeye waan lagu laayay meesha ciidanka Eritreanka baan laayay ku macallimiinteena tababaraysay baan ku laayay meesha markay adu xagee ka tagtay magaalada ahaan markay dadka la wadaag Puntland baan ka tagay magaalada Boosaaso yaa ku qoray marka ciidanka nisaan ka qoray xagee laga qoray nisa xarunta nisa mida Cabdirasaaq ku sheegayaan wuxuu yahay baan u garan waayay baan qoray oo xagee joogay xamar marka maxaa la idin qoray marka hore oo aad doonayseen idinku waxaan loo qoray ciidan qadar ahaan baan loo ku qaaday marka Eritrea baan la ka dajiyay meeshina Eritrea bay nagu noqotay goorma marka la idin qaaday 2019 2 sano iyo waxaan joognay 8 bilood baan joognay waxa ay helaan ma la soo xiriirteen intii aad xagga jirteen hadda waa 2021 maya lama xiriirin waxaan la xiriirinay ma jirin markaan xuduudda aan soo gaarnay baan ehelkeeni waanayo markaas bay ogaadeen ka qayb gashan dagaalada Itoobiya la dhexmaray gudaha dalka Itoobiya maya kama aan qayb galin xeradeena nagu joognay 3 xero baan ku kala sugannahay 3da xero ciidanku waa ay joogeen tababarkooda u socday kama aan qayb galin marka dagaalka maqalay Tigreega iyo ka dhacay waayahay marka tacadiyaa sheegatay in la idinku sameeyay la idin laayay bal faafaahin naga sii yaa taqaano la idinka dilay oo dadka la wadaagi kartaa oo dhalinyaradii la idin qoray kamid ah xerada anigu joogay oo horta dagaalku uu ka dhacay xerada waxa weeye kumaandada 7 qof baa ku dhimatay dhaawacuna wuxuu ahaa 45 qof intii dhimatana waxa weeye asxaabteeda Ilaahay u naxariisto tacadiyada kale maxaa kamid ah tacadiyada kale waxa weeye xadii aan lahayd xagga diinta hadii aan lahayd xagga nolosha agum bay iskala ka dhacayaan wuxuu waa Eritrean ama afkaran hadana waxa weeye waxa ku tiraahdan garanayn markaad ogaateen in Eritrea ka degteen la idin sheegana qadar in la idinka dajinayo bal ka waran dareenkiina meeshii waxaan anagu sugaynay qadar baan sugaynay Soomaha meeshii Eritrea nagu noqotay waxa weeye tababarkeena iska qaadanay tababarkeena noo socday kadib markii dambe goortu waqtigii uu dheeraaday oo waxa weeye xaaladiina nagu adkaatay ayaanu ka soo tagnay waatan hadda aanu waxa weeye mas'uuliyiinta sidee markii ku soo baxsatay qof walba soo tagi kara Soomaha oo hadda meesha jira xeradu aad bay adag tahay lagama soo tagi karo laakiin se marna waxa weeye anagu waanu ka soo dhacnay xerada waxa weeye marna waxaan iska dhigaynay dhagax marna geed baan isku hekaysiinaynay taasaan ugu soo tagnay waa sheeko dheer wahagaag daawadayaal waxa halkan igula sugan asxaabtiisa haday faafaahin ayuu bixiyay warbaahinta uu la wadaagay sheekada markaas Saciid waa mid dheer oo aan halkan kaga bogan karin hadaba waxaan insha Allah isku day doonaa dhalinyarada qaybtood in aan sheeko dheer la yeelano waqti kan ka muhiimsan saacadu imika waa 3 galabnimo ilaa ma saaka kulankii la galay ayaa xilligan lagu soo gaaray annagoo wax badan tixgelinayna ayaan sheekada sidaa ku soo koobnay